السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kusoo dhawaada Alkhaliiji mar walba kala socotaan barnaamijyada multimedia iyo graphic design-ka iyo horumarinta. Ciwaankan wuxuu ku saabsan yahay sidee loo sameeyaa. Hadda waxaan u jeednaa sawirkan oo kale. Sawirkan laakiin muhiimadeena waxa waaye text outline. Text outline waxa waaye sawirkan wejigiisa qaybta uu ku aadan yahay ayaa waxaan ka dhigaynaa qaab stroke ahaan ama outline. Outline waxa waaye waxa dhexda ku jirtana filmka laga bixinayo stroke loo sameynaa. Hadda waxaad u jeedaa textiga markaas select gareysid. Laba text mar walba muhiim ah marka sameynaysid. Hadda labada markaas saan u select gareysid control ka qabatid. Hadda texitan meesha sida caadi markuu yahay qoraalkiisa caadi waaye. Jiddo yareeta qoraal caadi waaye laakiin aan weyneyno qaabka loo sameynayo ayaan idin tusi doonaa insha Allah. Wada fudud waxaad ku sameyn kartaa qoraal looga adiga leedahay PNG ah haddii aad sameysid insha Allah waxyaabo badan oo is leedahay mararka qaarkood sharaxaad ciyaartooyda mararka qaarkood aad u sameynaysid. Hadda waxaa ujeedaa mararka qaarkood waa arki doontaa insha Allah social media inaad ku aragtid sidaan inaad kula wadaagi doonaa insha Allah. Waxaan jeeraa inaad fahmi doontid qaabka loo sameynayo. Hadda waxaad ujeedaa kaliya qaabku uu yahay before intuu noqonin insha Allah. Intaas haddaad ku cusubtahay channelkeena fadlan subscribe like share si asxaab badan ay ugu faa'iideystaan muuqaalka mar walba aan soo gudbino. Waxayna tahay dhiirigelin in muuqaalkeena uu mar walba aan soo bandhigno si asxaab badan ay ugu faa'iideystaan insha Allah. Waxaan rajeynayaa inaad page-ka iyo YouTube-keena aad subscribe iyo follow iyo like aad dhahday. Taasna waxay noo tahay dhiirigelin channelku inuu faafo oo dad badan ay u gaaro insha Allah. Waxaan rajeynayaa soo diyaargarow computerkaada iyo photoshopkaada soo furo. Markaad soo furatid step koowaad hadda kan waa iska xireynaa ma rabno sababtoo waxaan rabnaa environment-ga aan ku shaqeyn doono mid cusub inaan ka dhigano si aad u fahantid midkaan kaliya aniga waxaan sameeyay wadooyinka aan sameeyay dhan inaan ku wadaaga rajeynayaa insha Allah. Markuu horeyso sawirkaan aan soo gashanayna hadda sawirkaan waa isticmaalay from scratch ama qaybta ugu hooseeya ayaan ka bilaabi doonaa ilaa qaybta ugu sareysa adiga aad sameyn doontid. Control O ama file open aa leedahay. Sawirkaada meesha uu ku yaal tag pictures u yaala waa kana sawirka. Wuu furmaa qayb kale ku furmaa. Okay sawirkaan sida marka uu furmay oo inta kugu yaalo sawirka duplicate garey. Sida u duplicate gareyn kartaa right click duplicate layer. Step 1 waa okay dhahaysa. Step 2 control J ayaa leedahay. Labadaas option u sameyn kartaa. Insha Allah waxaan rajeynayaa inaad sameysatay mar walba sawirkaani background kan hoose kan kale in laba ay yahaan laba noqdaan sababtoo hal rabaa textiga behind inaan ka sameyno laba qoraalka isticmaali doono. Sawirkan marka sidan uu yahay background-ga inaad ka bixisid waa muhiim sababtoo background-ga haddii sidan uu ku yahay qoraalka aan rabno soo masaamaxayo oo wax badan ku sameyn karno. Properties ayaa leenahay. Properties marka dhahno waxaas dhan waxa doonayaan remove background-ga dhan ka bixi ayaa leenahay. Markuu background-ga uu ka bixiyo ayaa waxaan soo noqon doonaa insha Allah textigeena. Background-ga automatically 21 iyo 23 iyo 22 wuxuu leeyahay remove background-ga uu fududeeyaa uuna qurux badan yahay. Mararka qaarkood laakiin text badan hadduu yahay oo background kala isku dhex jiro qoraal qaarkood ku laba hadda background uu ku jiraa uu ka jarmay laakiin ma fahmi karno. Layers-ka tagayna qaybta waxaa ujeednaa soo u jiro background-ga hadda waxaa ujeedaa background-ga soo saarqayo. Qaybtan waxaan rabnaa layer-kan right click dheh rasterize ama convert smart object dheh. Sawirkan sawir vector ka dhig kadibna right click dheh rasterize ka dhig si culays uusan u dareemin. Hadda sawirkan haddaan dhahno aan qaadno wuxuu noqonaa laba xabo control C. Textiga aan rabno waxaa waaye text caadi ah soo qabsanayna farta rabtid ku qor far adiga kugu quseeya salaam designer lam tajib control A hadda fartan calaamatu tacajib dhinaca inay aad rabnaa sida u sameyn kartaa saar qoraalka double click dheh dooro dhamaantiis ama control A dheh hadduu calaamadan kuu soo bixin character-kan kuu soo baxsaneen
windowska tegaysaa character aa leedahay characterka markuu saan usoo baxo paragraph aa dooranaysaa hadii sidaan calaamado qaarkood ma soo baxaya waxaa leedahay middle eastern kadibna calaamada qaybta english tan carabiga english aa leedahay kadibna calaamadan hibernate jacket kan waxaa loogu talagalay badanaa qoraalada markay yihiin in xariijin dhexda uu soo galo fartan sida markuu yahay bold aa ka dhigatay waxaa rabtaa u samaystay iska xir kadibna hadii si qoraalkan bold inaa zaid kasii dhigaa rabaa waa select gareynaa keliya bold waa noo dooran tahay waa sii furaysaa meeshan bold black aa ka dhigi kartaa black markaa kasii dooratid calaamadan sii jiif aa ka dhigaysaa fartan hadii ku dhicin far kale ka bedel ana hadda waxaan rabnaa keliya qoraalkan wejigu ku aadayo inaan qarino oo aan ka sameyno stroke sida u sameyn kartaa qoraalkan si duplicate lagu sameeyo sida oo sawirka right klick aa leedahay duplicate ama control j aa leedahay control j markaa dhin sawirkan qoraalka originalka aan sameyno iyo sawirka hoostiisa la geenaa kii hore soo jiray oo frontiga jiray waxaa laga doonaa qaybta colorfulka waxaa laga doonaa 0 sababtoo hadda qaybta behindiga la arki doonaa frontiga rabnaa inaan aragno calaamada fx taas dooro stroke dooro stroke markaad dooratid si automatically aniga hore u isticmaalay hadda color uu isiiyay color waxaan ka dhigaynaa cadaan 3 gaarsiin ama 5 kadibna okay aa leedahay qoraalka hoose iyo qoraalka kore isla qabo hadda waxaa ujeedaa qoraalkan saas u samaysatay rajayna insha allah si fudud inaad ku samayn doonto meesha aad geysid qoraalkii wax ku aadayo oo sawirkiisa ku aadi lahay wuxuu noqonaa stroke ama outline hadii laakiin tusaale haddaan intuu soo dhameeyo wuxuu noqonaa qoraal caadi banaanka haddaa geey wejigii meel ka mid ah wejigiisa wuxuu noqonaa stroke insha allah haddii dhigta haddaan usoo dhameyn qayb ka mid ah qayb waa laga arkaa qaybna stroke uu noqonaa weji hadda maxaa ujeedaa weji indhihiisa waa la arkaa afkiisa daarat dhinac inta adiga aragtid waa ka samayn kartaa ujeedo hadda qoraalkan qayb ka mid ah hadda geesuu ku jira qayb ka mid ah banaanka u saaray intaas ayaan kusoo gabagabeynaa waxaan rajeynaa inaad fahanteen oo practical badan aad samaysateen haddii aad ku cusub tahay janaalkeena fadlan subscribe like share si asxaab badan u gaaro muuqaalka oo dad badan ay uga faa'iideystaan sida adigoo kaleeto insha allah waxay noo tahay mar walba dhiirigelin inaan muuqaalo joogto aan soo bandhigno waa inuu mar kale iyo muuqaalo kale oo sidaan oo kale asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh